deegaanka qaliija ee duleedka magaalada Cape Town waa tuulada labaad ee ugu weyn dalka Koonfur Afrika waxaana ku nool Soomaali badan oo ku dhex ganacsada dadka deegaanka oo u badan dad danyar ah kulan shalay deegaankaasi lagu qabtay oo ay ka qayb galeen hay'ado caawiya dadka danyarta iyo ganacsato ayaa waxa lagu bixinayay dhaqaalo iyo agab kale oo waxbarasho kuwa oo lagu caawinayay carruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee ku nool deegaanadaasi si ay goobaha waxbarasho u aadaan isla markaana ay uga faa'iideystaan waqtigooda ganacsato Soomaali ayaa qayb ka ah kulankaasi waxayna ku yabooheen agab waxbarasho oo isugu jira dhar lagu aado iskuulada buugaag iyo qalimaan iyo waliba agab kale kuwa oo lagu talagalay in sanadka soo socda 150 carruur ka soo jeeda qoysas danyar ah ay ku aadaan iskuulada Mahad Cumar oo kamid ah ganacsatada Soomaalida oo ku nool magaalada Cape Town xubinna ka hay'adda Ulisa lagu magacaabo ayaa sheegay in hawshan ay soo wadeen muddo 7 sano isla markaana carruurta ay siin jireen raashin iyo dhar balse sanadkan qorshahoodu uu ahaa in carruurta maskaxiyan loola tacaalo waxaana uu inta ku daray in muhiimadu ay tahay in ganacsatada Soomaalida ay mar walba caawiyaan dadka danyarta ah ee South Africaanka ay ku dhex ganacsadaan programka waxaan soo wadnay ilaa muddo 7 sano ah oo aan ugu talagalay maartay in Soomaalida ganacsatada ah iyo dadka ka dhex ganacsadaan ay Soomaalidu maartay maadaama dad dhibaataysan yihiin ay gacantooda gaarto ay sadaqa siiyaan oo ay maartay waxbarashadooda iyo cuntooda ka qayb qaataan marka xaqiiqiyan kana ku hor wuxuu ugu duwan yahay awalka waxaan sii jirnay cunto bustayaal raashin macnaha dhar ay xirtaan laakiin hadda waxaan go'aan ku qaadanay inaan mataqaanay aan dhisno dhinaca waxbarashada oo aan buugaagti iyo qalimaanti iyo dharkii iskuulku aadi lahaayeen iyo wixii dhan aan sanadka dambe aan maartay u diyaar garowno taasna waxa sababtay macnaha waddankan dadka waxbarashada aad bay u hoosaysaa especially dadka madowga oo degan meelaha maartay Soomaalida ka ganacsato marka intii aad qof wax si lahayd wuxuu cuno waxa ka fiicnaa maskaxaysa dhisto si uu hadhowti oo u ogaado mustaqbalkayga iyo waxbarashadeeda iyo soo jiritaankayga waxa ka qayb qaatay bulsho Soomaaliyeed oo ganacsata ah waddankan deganeed gargaarada noocan ah ee aan hore looga baran ganacsatada Soomaalida ayaa qayb ka qaadan kara isfahan dhaxmara ganacsatada Soomaalida iyo waliba dadka South Africaanka ah oo ay ku dhex ganacsadaan Abdullahi Qorshe Soomaaliya Cape Town South Africa